Mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee saacadda qiyaamaha ayaa lagu arkay dalka Ciraaq. Daawada intaanan muuqaalka u guda galin, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto gambalaalkana u furato si ay kuu soo gaaraan macluumaadyada halkan aan ku soo gudbin. Aad ayaad u mahadsan tahay, muuqaalka like-ta ka hilmaamin. Waxay noo sheegeen kitaabka Kariimka iyo sunnada Nabiguba in badan oo ka mid ah calaamadaha saacadda qiyaamo yaysanba weli dhicin, sida soo bixidda Yaajuuj iyo Maajuuj, soo bixidda Masiixu Dijaal iyo Mahdigii la sugayay, iyo soo degidda Sayyidina Ciisa calayhi salaam oo samada ka soo degayay dhulkana uu u soo degayay. Laakiin qaar kale oo ka mid ah calaamadahan si sax ah ayay uga dhaceen caalamkan aan ku noolnahay, sida uu axaadiis noogu sheegay nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Axaadiistaasoo tusinayda calaamadaha inuu dhawaaday maalinka qiyaamaha iyo sugidda runnimada risaaladii nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo runnimada nabinimadiisa sallallahu calayhi wasallam. waxaa ka mid ah calaamadahaas uu nabigu sheegay inay soo baxaydo buur dahab ah oo ka soo baxayda webiga Furaat. Wuxuu yidhi nabigeena nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, dhici maydo saacadda qiyaamo ilaa webiga Furaat lagu soo koobo buur dahab ah. Dadkana waa lagu dili doonaa oo boqol kasta waxaa ka dhimanaysa 99. qof kastoo dadkaas ka mid ahna wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inaan ahaado qofka badbaaday. Sababta ay u soo baxday buurtan dahabka, webigan Furaat ayaa socodkiisa ka soo bilaaba buuro ku yaala koonfurta Turkiga, wuxuuna soo maraa dhulka Syria kadibna Ciraaq, wuxuuna kula kulmayaa halkaas webiga Dajla. Wayna midoobayaan, wayna isku ekaanayaan, biyo mareenkooduna mid ayuu noqonayaa, wayna wada soconayaan ilaa ay galaan khaliijka Carabta. waxaa la ogyahay inay buuraha koonfurta Turkigu ay yihiin meeshay ka yimaadaan biyaha webigu, waxayna isku dayeen Ciraaq iyo Suuriya inay joojiyaan oo xiraan biyaha webiga si ay uga dhaliyaan koronto iyo waxyaalaha la midka ah, beeritaanadan ay ugu isticmaalaan iyo wax soo saarkooda. Markii ay awdeen oo xireen Turkiga iyo Suuriya biyihii webiga, waxay sababtay xabisidda biyuhu inay sii yaraadaan marba marka ka dambeeyda biyihii webigu, uuna webigu ka qalalo qaar ka mid ah magaalooyinka Ciraaq. qaar yar oo ka mid ah sanooyinkii la soo dhaafay, in badan oo dadkii ka mid ah ayaa raadiyeen oo isku dayeen inay la soo baxaan kaydkii halkaas ku duugnaa. kaydkaas oo ah buur dahab ah, kaasoo lagu sheegay xadiiskii nabigeena sharafta leh sallallahu calayhi wasallam. waxaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan baaritaanadii lagu raadiyey dahabkan, tii ka dhacday mandiqatul Kamaaliya ee caasimadda Baghdad. waxayna ku guuleysteen oo halkaas ka heleen in badan oo dahab ah oo uusan caqligu suuraysan karin. waxyaalaha lagu rajada weyn yahana waxaa ka mid ah inay noqoto Ciraaq dowladaha ugu qanisan caalamka, uguna badan soo saaridda dahabka. haddii aad ilaa dhammaadkii nala joogtay, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto, muuqaalkan aad like saarto,